السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا كسو دوادا برنامج كينا إي فايدة أنكو فايدة أو أدو برتين سؤالوين أقون قوتا سؤالوين كوحي ككوين سدد سؤالات شان سؤال أو ديني يستح سؤال أو حرحلالة كوا ديني وانك جواب دونها دو الله يدمو لكن سؤالها حرحلالة إذنك يالي إذنك دونيا برنامج كوحي لنسو أرسين دونا أنيقو ماجد فاروق waxaan gudagali doonaa su'aalihii dhamaantooda. Su'aasha koowaad sheeg qofkii ugu horeeyay oo looga yeero magaca Amiirul Mu'miniin. waa Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Su'aasha labaad sheeg waa kuma malagii waxyiga u keeni jiray nabigeena sallallahu alayhi wa sallam. jawaabtu waa malakul jibriil alayhi salaam. su'aasha saddexaad sheeg imise sano ayay ku jireen asxaabul kahf godka. waxay ku jireen 309 sano. su'aasha afraad sheeg kumuu ahaa gawaagii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. wuxuu ahaa xasan bin thaabit radiyallahu anhu. su'aasha shanaad sheeg rasuulka sallallahu alayhi wa sallam hooyadiisa magaceeda. jawaabtu waa Aamina bint Wahab. su'aashan waa su'aashii lixaad waa su'aal xarxilaala gaari ayaa waxa uu u socday tuulo markii uu wadada ku sii jiray ayaa waxa uu la kulmay 4 gaari oo kale. imise gaari ayaa u socdeen tuuladaas? su'aashan jawaabteeda idinka ayaa idinka doonaya. qofkii ka jawaaba fadlan commentiga noogu reeb si aan u fiirino su'aasha aad ka jawaabtay inay saxan tahay iyo inay qaldan tahay. su'aashan waa su'aashii toddobaad ahna ayadana su'aal xarxilaala waxay leedahay noole ma ahi balse waxaan leeyahay 5 farood maxaan ahay? haddaba su'aashan waa su'aal cajiib jawaabteedana idinka ayaa idinka doonaya. fadlan ayadana commentiga noogu reeb haddii aad ka jawaabtay haddii aad saxdayba waan fiirin doonaa. waa su'aashii sideedaad ahna ayadana xarxilaale bishee ayay seexdaan aadanuhu hurdada ugu yar? su'aashan waxaa laga doonayaa inaad bishi magaceeda aad sheegtid. haddii aad ka jawaabtay haddii aad saxdayna waan fiirin doonaa. fadlan commentiga ku reeb jawaabta. haddii aad ka jawaabi waysana insha Allah anaga ayaan ka soo jawaabi doonaa.